shirkii golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka oo dadka Soomaaliyeed si weyn ugu warsugayay natiijadiisa ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana shirka ka soo baxay warmurtiyeed lagu hakiyay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo midka maamul goboleedyada dalka. shirkan oo 4 cishaan ka soo gudubnay ka soconayay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Jubbaland ayaa madaxda qodobada ay ka gaaraysanayeen waxa kamid ah arrimaha amniga, dhaqaalaha, doorashooyinka, xiriirka ka dhaxeeya maamulada dhexdooda iyo kan dawladda federaalka Soomaaliya hadda la hakiyay. warmurtiyeedka ka soo baxay shirka ayaa waxa warbaahintu u aqriyay la taliyaha guud ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka injineer Cabdulqaadir Sheekh Maxamuud. dadka Soomaaliyeed waxay sugayaan in laga miro dhaliyo howlaha baaxadda weyn ee weli qabyada ah oo ay ugu horeeyaan dhismaha ciidanka qaran oo leh karti ay ku hantaan amniga dalka, dhamaystirta qabyo qoraalka dastuurka, meelmarinta sharciga doorashooyinka, qabashada doorashada heer dowlad goboleed iyo heer federaal, dhamaystirka golaha adeega garsoorka, qaybisiga awoodda dakhliga iyo khayraadka. golahu wuxuu ka quustay in dowladda federaalka Soomaaliya ay meel mariso heshiisyadii iyo ballamadii horey loo galay. taa beddelkeedii dowladda federaalku waxay wada shaqayntii ka doorbiday faragelin guracan oo ay dowlad goboleedyada ku hayso, taasoo dhaawacday kalsoonidii wada shaqaynta ee labada dhinac dhex mari lahayd. maadaama dowladda federaalka ah iyadu mas'uul ka tahay xiriir xumida labada dhinac, golahu wuxuu isku raacay in sida kaliya ay wada shaqayntaas labada dhinac ku dhex mari karto ay tahay kow in dowladda federaalku joojiso faragelinta guracan ee dowlad goboleedyada ku hayso, inay garowshiyo ka bixiso xiisad abuurka iyo faragelinta joogtada ah, in la helo hanaan iyo heshiis wada shaqayn oo leh damaanad lagu kalsoonaan karo. haddaba inta laga helayo fulinta qodobadaas muhiimka ah wada shaqaynta labada dhinac, golahu wuxuu hakiyay wada shaqayntii u dhaxaysay golahu wuxuu hakiyay wada shaqayntii u dhaxaysay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. shirkan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka maamul goboleedka Jubbaland ayaa noqonaya kii saddexaad oo madaxda maamul goboleedyada dalka isugu yimaadaan. Ibrahim Ali Nuur, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Kismaayo.